قروي سوماليلاند قرشة يا نظام لو ونقرن تستوركو حيو حيركونا قروي سوماليلاند قرشة يا نظام لو ونقرن تستوركو حيو حيركونا هدي لابو اسقبتنا ورويت دقنكيو ورتبا وقيب سنو حلسو قردفا شعبكنا قدريا هدي لابو اسقبتنا ورويت دقنكيو ورتبا وقيب سنو حلسو قردفا شعبكنا قدريا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت بشوية هاي بشي لبعض شنتيدي وحان آدي فرحان نجوا إن أن كسر وينو هيد كوادر كي دبدميسكا قدومي قبل كا أوذل يو مير كي بورمه يو سراكيشن حال هذا دبدميسكا waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo ku hambalyeynaa meeyarka iyo gudoomiyaha iyo cidii ka soo shaqeysay iyo xildhibaanadii Boormeba awoodda ay saareen in booyadan maanta iibiyaan dabdamiskan ay ku wareejiyaan booyadani wax weyn bay ka tari doontaa Boorame ka shaqeyn doontaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida fiican iyo hawlkarnimada madaxda gobolka ee noola shaqeeyaan dabdamiskan noola dhisaan nooga warhayaan waxaan had iyo jeer ku boorinay dadkana maadaama mas'uuliyiinta gobolka soo dadaalayaan dadweynuhuna inay wax ku soo darsadaan khaas ahaan kuwa Boorame degan mar labaadna waxaan ku boorinay dadka qurbaha jooga in iyaguna wax ku soo darsadaan imika dabdamiska goboladii dhan buu gaaray waxa la gaaray tartankii goboladu tartami lahaayeen marka dadweynaha gobolka ku nool kolba sidii u taakuleen dabdamiska gobolkooda ayuunbe maxaa la yiraahdaa loo kala hormaraya marka meeyer iyo gudoomiye aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa inta in ka badanna waan ka filanaynaa haddii alla ka dhigo markoowaad ilaahay baa mahad iskale mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka dabdamiska ee qaranka Soomaaliland barasaabka gobolka saraakiisha kale ee ciidanka dabdamiska iyo Cabdiraxmaan oo ah ganacsadihii soo iibiyay booyadan marka laga yimaado mahadaasi waxa sharaf noo ah anigoo ku hadlaya afkii golaha deegaanka degmada Boorama in booyadan aan ugu tala galnay dabdamiska degmada Boorama waxa jira sidaynu ka warqabno degmooyinka iyo magaalada Booramaba way fidayaan maadaama ay fidayaan waxa loo baahan yahay in adeegyada bulshada ay ka mid yihiin dabdamiska caafimaadka waxbarashada jidadku inay la koraan magaalooyinkaas maadaama ay fidayaan marka waxaan qorshahayagu ahaa sanadkii 2022 in booyadan lagu biiriyo gaadiidka dabdamis ee ka shaqeeya degmada Boorama waan uga mahadnaqaynaa hawshaasi sida wanaagsan ay noola shaqeeyeen taliyaha ciidanka dabdamiska iyo saraakiisha kaleba gaarigaasi waa gaari booyada wuxuu caawin doonaa gawaarida dabdamiska ah ee Boorama joogta innaguna waxa loo baahan yahay inaynu iska rab taagno annagu waxaan ballan qaadaynaa inaanu wixii taagtayada mar walba ka qayb qaadano bulshadana waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan hadday noqoto ganacsato iyo hadday noqoto qurba joog taasi ma idinku bogaamidinaynaa waanu mahadsantihiin marka hore mahad ilaahay baa dhamaanteed iska leh waxaan u mahadnaqaynaa taliyaha ciidanka dabdamiska iyo ciidankiisaba sida nafteed horanimada leh ee ay ugu dadaalaan inay nafaheena iyo hantideena badbaadiyaan markasta ay heegan kugu yihiin hawsha waa la kala leeyahay maanta cashuurtii dawladda hoose laga soo iibiyay laakiin waxa la inooga baahan tahay jeebkeena ku jirtana inaan wax kaga daro kiisha kale dabdamiskana miisaanka xasanaadka Allah idin soo rumada ceel ka soo saartay mid la tago ka soo reebtaan bad dabdamiska qolo kuma eekidin hawlo badan baan noo haysaane ilaahay miisaanka xasanaadka ay soo weydin ducaynayna waxana idin kala hadhimaynay af iyo adinba
xitaa waxa la yidhi haddaad adigu waxba u qaran karin waar u qayliyone haddaanu xitaa waxba idin dhiibi weyno waanu idin qaylin karayna waanu idin qaylinayna inta taagayo aad baanu idinku aaminayna hawsha noo haysaan idinna hanaga daalina baanu ku leenno idin leenahayoo war hanaga daalinee haysoo dhanna dadku idinka seexdee dee idinna iska seexda foojignaantiina idinna sii kordhiya wasalaam